kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal kusoo dhawaada barnaamijkeena dhacdooyinka caalamka ah ee aad kala socotaan runmaal media qaybtan waxaan idinkula wadaagi doonaa wararkii ugu dambeeyey ee xiisada sii kululaanaysa ee dagaal ee u dhexeysa Mareykanka iyo Iiraan iyadoo saacadihii lasoo dhaafay ay ciidamada ilaalada kacaanka Iiraan ay weerareen saldhig muhiim ah oo dayax gacmeed iyo khasaare ka dhashay. Donald Trump wuxuu sheegay in marinbiyoodka Hormuz uu Mareykanku la wareegayo isla markaana ay canshuuri doonaan maraakiibta mareysa. Iiraan maxay ka tiri hadalkaas? Dhanka kalena Sacuudiga iyo weliba Xuutiyiinta miyay dib ugu laabteen dagaalkii oo miyay dhamaatay xabad joojintii ay labada dhinac hore u gaareen kadib weeraro saacadihii lasoo dhaafay ay dhinacyadu isweydaarsadeen. Qodobadaasi waxay nagu soo kordhay aad ku daawan doontaan barnaamijka dhacdooyinka caalamka. haddii ay tahay marka ay kugu horeysay aadna soo booqato fadlan nagu soo bir oo subscribe dheh. haddii aad nala joogtayna aad baad u mahadsantahay. aynu ku bilowno. ciidamada ilaalada kacaanka Iiraan oo ka jawaabaya weeraradii saacadihii lasoo dhaafay uu Mareykanku qaaday gudaha dalka Iiraan ayaa sheegay inay bartilmaameedsadeen saldhig dayax gacmeed oo uu Mareykanku leeyahay dal Carbeed oo ku yaala bariga dhexe. ciidamada ilaalada kacaanka Iiraan ayaa war-saxaafadeed ay soo saareen saakadii hore oo Talaado ah waxay ku sheegeen inay gantaalo iyo diyaarado aan duuliye lahayn ay ku weerareen saldhig dayax gacmeed oo uu Mareykanku ku leeyahay dalka Bahrain iyo sidoo kale saldhig ay degan yihiin ciidamada badda ee Mareykanka ee lagu magacaabo Jufayr ee ku yaala dalka Bahrain. ciidamada ilaalada kacaanka Iiraan ayaa sheegay in gantaalo iyo diyaarado aan duuliye lahayn ay ku weerareen saldhigaasi isla markaana ay burbur xoogan gaarsiiyeen. saacadihii lasoo dhaafay dhinacyada ayaa isweydaarsaday weeraro culculus iyadoo oo Mareykanku uu saacadihii lasoo dhaafay duqeymo culus ka geystay magaalooyin dhaca koonfurta iyo weliba xeebaha dalka Iiraan. dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inay uga gol leedahay weeraradan inay ku daciifiso awoodda Iiraan xilli ay dowladda Iiraan sheegtay in ay guud ahaan bixirtay marinbiyoodka Hormuz kadib markii ay Mareykanku ku eedeysay in uu jebiyey heshiiskii xabad joojinta ee labada dhinac u dhaxeeyay. Mareykanka ayaa dhankiisa sheegay in Iiraan ay jebisay xabad joojinta kadib markii uu ku eedeeyay inay weerartay laba markab oo ganacsi oo marayay marinbiyoodka muhiimka ee Hormuz. dhinaca kalena markab shidaal siday oo marayay marinbiyoodka Hormuz ayaa la sheegay in ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan ay weerareen wax yar uun ka hor markii ay Bahrain iyo weliba Imaaraadka Carabtu ay shaaciyeen in markab shidaal siday lagu weeraray marinbiyoodka Hormuz kaasi oo ku dhintay mid ka mid ah shaqaalihii saarnaa markabkaas halka 8 kalena ay ku dhaawacmeen. ay ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan bayaan ay soo saareen waxa ay ku sheegeen in maraakiibta uu ku qasbayo inay maraan marinbiyoodka Hormuz si sharci darro ah iyaga oo sheegay in marinbiyoodkaasi ay iyagu si rasmi ah u maamulayaan cidda mareysana ay tahay in ay fasax ka helaan ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan. dowladda Mareykanka ayaa haatan diiradda saaraysa in maraakiibta ganacsiga ama maraakiibta shidaalka ay maraan marinbiyoodka Hormuz si caalamka loo tuso in Iiraan ay weerarayso. dhinaca Iiraan waxa ay sheegtay in Mareykanku uu wado gardarrada isla markaana uu xayiraado ku soo rogay dekedaha dalka Iiraan taasi oo saameyn ku yeelanaysa guud ahaanba isu socodka ganacsiga caalamka. marinbiyoodka Hormuz waa mid ka mid ah marinada ugu muhiimsan ee istiraatiijiga ah iyadoo ay ka gudbaan 20% ganacsiga ama isu socodka ganacsiga caalamka. bayaan ay RCG soo saartay subaxnimadii Talaadada ayaa lagu yidhi saacado ka hor ciidamada Mareykanka ee caruurta dila kuwaasi oo aan waxba ka baran guuldarrooyinkii soo noqnoqday ayaa isku dayay in ay qasbaan qaar ka mid ah maraakiibta in ay si sharci darro ah u maraan marinbiyoodka Hormuz. waxay intaa ku dareen bayaanka labada markab ee waaweyn ee shidaalka sida kuwaasi oo uu Mareykanku marin habaabiyey isla markaana khatar geliyey isu socodka maraakiibta iyagoo damiyey nidaamyadooda hagidda iskana dhega tiray digniino isdaba joog ah oo ka yimid xarunta ammaanka ee gacanka Hormuz isla markaana doortay in ay maraan marin miinooyin lagu aasay ayaa la beegsaday waxaana laga dhigay kuwa shaqayn waayey. wakaaladda wararka ee ku dhow RCG ayaa habeennimadii Isniinta si aan rasmi ahayn u sheegtay in laba markab oo shidaal sida oo xadgudub sameeyay lagu weeraray marinbiyoodka Hormuz balse ma aysan sheegin ciddii fulisay weeraradaas. bayaanka ayaa sidoo kale lagu sheegay in ciidamada ilaalada kacaanka Iiraan ay dhammaan maraakiibta ku wargeliyeen in aysan qaadan awaamirta Mareykanka isla markaana marinbiyoodka Hormuz ay si rasmi ah u maamulayso dowladda Iiraan wixii ay rabaanna ay kala hadlaan dowladda Iiraan. dowladda Iiraan ayaa si weyn kaga soo horjeeda in Mareykanku uu amar ku siiyo maraakiibta inay mari karaan ama aysan mari karin
oo Iiraan waxa ay ku andacoonaysaa in marinkaasi uu yahay mid ay iyadu maamusho isla markaana ay gacanta ku hayso. taasina waa mid dhacday oo Iiraan markii ay xirtay marinbiyoodka Hormuz ma jiro markab shidaal ganacsi ama markab ganacsi ama xitaa mid military oo mari kara marinbiyoodka Hormuz. iyadoo xaaladaasi ay taagan tahay ayaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxa uu sheegay in marinbiyoodka Hormuz uu Mareykanku si rasmi ah u maamulayo isla markaana uu canshuurayo maraakiibta marinkaasi maraysa. hadalkaasi waxaa durba ka jawaabay wasiirka arrimaha dibadda Iiraan Abbas Araghchi isaga oo sheegay in hadalka Trump uu saxan yahay marka laga reebo in Mareykanku maamulo. Abbas Araghchi ayaa sheegay in marinbiyoodka Hormuz ay ammaankiisa gacanta ku hayso dowladda Iiraan, Mareykankuna u sheego dalalka adeegsanaya marinbiyoodka Hormuz in ay lacagaha canshuuraha ay siiyaan dowladda Iiraan maadaama ay gacanta ku hayso marinbiyoodka Hormuz ayna sugayso ammaankiisa. Iiraan markii laga soo bilaabay 28 Febraayo oo Mareykanka iyo Israa'iil ay si wada jir ah ugu weerareen waxa ay xiratay marinkaas. Mareykankuna wuu awoodi waayey in marinkaasi uu furo ama xitaa ay maraakiibtiisu ka gudbaan. maraakiibta dagaalka Mareykanka oo taagan meel aad uga fog marinkaas ayaa waxa ay weerar ku qaadaan xeebaha dalka Iiraan si ay ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan ay u daciifiyaan isla markaana uga dhigaan marinbiyoodka Hormuz kuwa ay gacanta ku hayaan, taasi oo ilaa iyo hadda u suuragelin. weeraradii ugu dambeeyay ee Mareykanku ku qaaday dalka Iiraan ayuu Mareykanku andacoonayay in ujeedada weeraradaasi loo qaadayo ay tahay in la daciifiyo ciidamada ilaalada kacaanka Iiraan iyo weliba in Iiraan gacanteeda laga bixiyo marinbiyoodka Hormuz. Iiraan iyo Mareykanka heshiisyadooda hore waxaa qayb ka ahayd in Iiraan ay furto marinbiyoodka Hormuz isla markaana ay iyadu mas'uul ka tahay marinbiyoodkaasi, taasi oo Iiraan ilaa ay haatan ku taagan tahay. dowladda Mareykanka ayaa haatan quudaraynaysa inay gacanta ku dhigto marinbiyoodkan muhiimka ah oo il u ah dhowr dal oo carabeed iyo weliba Iiraan ay ku jirto, kuwaasi oo shidaal soo saara ay tahay marinka kaliya ay ka gudbaan. wadahadaladii ugu dambeeyay ayaa la sheegay in Mareykanku uu Iiraan cadaadis ku saarayo in marinkan ay si wada jir ah u maamulaan Iiraan iyo Mareykanka, taasi oo ka dhigan in Mareykanka loo ogolaanayo inuu ku soo dhawaado marinbiyoodka Hormuz. haddii uu dagaal kale u dhacayna ay adkaan doonto in Iiraan ay si rasmi ah u maamusho marinbiyoodka Hormuz. Iiraan hadda waxa kaliya ama hubka ugu culus ee ay haysato haddii dagaal lagu soo qaadano isku difaacdo waa marinbiyoodka Hormuz oo ay xirto, taasi oo saameynaysa dhammaan dhaqaalaha caalamka. madaxweynaha Mareykanka ayaa haatan sababaha ugu weyn ee uusan dagaalka u sii wadi karin ayaa la leeyahay inay qayb ka tahay in shacabka Mareykanka ay si weyn uga soo horjeedaan in dagaalkaasi uu sii socdo sabab la xiriirta in sicir barar guud adduunka ka dhacayo gaar ahaan Mareykanka. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa la sheegay in cadaadis gudaha uu wajahayo kaasi oo la xiriira sicir bararka Mareykanka ee ka dhashay xirnaanshaha marinbiyoodka Hormuz. Mareykanka ayaa dhowr jeer oo hore isku dayay in marinkan uu si awood ah ku furto, taasi oo ay suurageli weyday. isku daygii labaad ee Mareykanku ayaana ahaa in marinkan lagu furo wada hadal isla markaana Iiraan lagala heshiiyo in marinbiyoodkan ay si wada jir ah u maamulaan Iiraan iyo Mareykanka. Iiraan oo taasi ka soo horjeestay ayay noqotay in Mareykanku uu haatan wado isku daygiisii ugu dambeeyay ee ah in marinbiyoodka Hormuz uu soo galo ama ugu yaraan ay Mareykanka iyo Iiraan si wada jir ah u maamulaan. haddii aynu halkaa kaga tallaabno dagaalka Iiraan iyo Mareykanka, dhinaca kale Xuutiyiinta dalka Yemen iyo Sacuudiga ayaa haatan waxay u muuqdaan in xabad joojintii labada dhinac u dhaxaysay ay guud ahaanba burburtay ayna ku laabteen xaalad dagaal. shalay galabkii diyaarad ka timid magaalada Tehran ee dalka Iiraan, taasi oo siday wufuud Xuutiyiin ah kuwaasi oo ka qayb galay aaskii loo sameynayay hogaamiyihii sare ee Iiraan Ayatollah Ali Khamenei, taasi oo ku jeeday garoonka magaalada Sanca, ayaa waxaa diiday garoonka inay ka degto dowladda Sacuudiga oo xayiraad ku haysay. diyaaraddaasi oo iska dhiga tirtay ayaa sababtay in dowladda caalamka aqoonsan yahay ee Sacuudigu taageero iyo Sacuudigaba ay weeraraan garoonkii diyaaradaha magaalada Sanca. diyaaraddii ku degi lahayd ayaana qasab waxay ku noqotay in magaalo ku taala galbeedka dalka Yemen ay ku degto. kooxda Xuutiyiinta oo ka jawaabaya weerarkaas ayaa xalay waxa ay weeraro gantaallo iyo diyaarado aan duuliye lahayn waxa ay ku qaadeen garoonka diyaaradaha ugu weyn dalka Sacuudiga ee ku yaala magaalada Riyaad. Sacuudi Carabiya ayaa sheegay in gantaalada iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn laga hortagay ayna isla markaana ka jawaabi doonaan. dad aad u tiro badan oo taageersan weerarka lagu qaaday garoonka diyaaradaha ee dalka Sacuudi Carabiya ayaa isugu soo baxay fagaarayaal waaweyn oo ku yaala magaalada Sanca
ee caasimadda dalka yemen, taasi oo ay haatan maamulaan kooxda xuutiyiinta oo dagaalo kula jira Maraykanka iyo xulafadiis. Warbaahinta sida weyn ugu dhow aqalka cad ee la yiraahdo Axios ayaa soo warisay in amiirka ama dhaxal sugaha awoodda badan ee Sacuudi Carabiya Maxamed bin Salmaan uu Donald Trump ka helay ogolaansho la xiriira in uu duulaan ku qaadi karo kooxda xuutiyiinta si loo daciifiyo. Donald Trump ayaa u sheegay Maxamed bin Salmaan in Maraykanku uu Sacuudiga la jiro isla markaana ay daciifiyaan awoodda kooxda xuutiyiinta. Kooxda xuutiyiinta iyo Sacuudiga ma aha markii ugu horeysay ay dagaalamaan. Dhammaan dalalka Carabeed ayaa mar waxay isugu tageen kooxda xuutiyiinta si ay u daciifiyaan. Taasi beddelkeedana ugu dambeyn waxay arintaasi ku soo idlaatay heshiis xabad joojin ah oo ay gaareen dhinacyada kadib markii magaalooyinka dalalka Khaliijka ay noqdeen kuwa martigeliya gantaalada iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee xuutiyiinta oo taageero ka hela dowladda Iiraan. Waxay warar ka soo kordha xaaladda bariga dhexe iyo waliba dagaalka Sacuudiga iyo waliba xuutiyiinta. Barnaamijyadeena soo socda ayaad ku daawan doontaan. Haddii aad nala joogtay bilow ilaa dhammaad aad baad u mahadsantahay. Haddii aad nagu cusub tahay nagu soo bir. Haddii aad nala joogtayna aad baad u mahadsantahay. Like saar muuqaalka. Intayna muuqaalkeena ku kulmayno nabadgelyo.